asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan waa maalin kale iyo scholarship kale cusub isbuucanna waxa aynu dhex wareegaynaa ama aynu ku guda jirnaa netherlands waddankaasi holland waxa aanu maanta eegi doonaa scholarship aan filayo inaad dhammaantiin wada maqasheen orange knowledge program scholarshipkan ayaa ah scholarship master iyo short courses bixiya oo dad badan oo wadamo badan oo afrika u badan ay fursadahaasi ka faa'iidaystaan scholarshipkan ayaa maanta si guud u dulmaraynaa sida halkan idinka muuqatan scholarshipkan labada weji buu leeyahy inuu short courses bixiyo oo laga yaabo weeks inay socoto 2 week 2 bilood 2 bil 3 bil 7 bil meelahaas iyo masterka caadiga ah iyo 12 bil iyo ama 24 bil ama sanad ama 2 sano soconaya toos waxaan ugu sii gudbaynaa wadamada badan oo Afrika iyo Asia ba ku jira hadda hoos u soo dhaadhacdina waxa arkaysaa Soomaaliya oo iyaduna ku jirta wadamada loo ogol yahay in scholarshipkan xareeyaan marka maanta xoog waxaan saari doonaa kan hore ee short courseska waana inuu tusayaa waxaan ka wado midda kale oo inta aad OKB-da scholarshipkan ay ku guda jirtid aad ogaanaysaan waxa ay tahay waxa jira themes waxa la dhaho focus themes oo ah themeka uu markaas ay xooga saarayaan mowduucyo gaar mowduucyo waxa jira ay sanad kasta xooga saaraan sanadkan oo kale sexual reproductive health and rights iyo security and rule of law baa xooga la saaraya labada theme ama labada mowduuc labada qodob baa aad ay u bixinayaan scholarship ku saabsan runtiina haddaa fiirisid waa baahi waaweyn oo waddankeena Soomaaliya ka jira marka sida halkan ku qoran qualified applications within these themes will be prioritized waa muhiimad gaar ah la siinayaa dadka qualified ka ayo soo gudbiyay documentiyo fiican oo themeska xooga saaraya other fields also waa la soo dhaweynayaa baa la yiri laakiin waxa xooga muhiimad gaar ay leeyihiin marka waxa la yiri waxa fiirisaa country focus ka waana u imaanana documentigaas oo country kasta oo loo ogolyahay scholarshipkan waxaa jirta barnaamijyo ay Netherlands ka saacidayso ama mowduucyo ay horumarin ka sameynayso marka in ay align in ay la siman yihiin ama ay u dhigmaan mowduucyada aad adigu xiiseynaysid kuwa wadankaaga focuskiisu yahay baa loo baahan yahay country focus documentiga PDF ka baa u imaanana marka furtid oo wadan kasta waa ku arkaysaa hoos goortan usoo dhaadhacno Soomaaliya raadino maadaama ay tahay meelaha hoose bay jirtaa Senegal Soomaaliya yes wadana Soomaaliya marka haddii aad u timaadid kor priority areas Soomaaliya waxa weeye waa maritime security and rule of law food security and agriculture labada mowduuc baa xooga loo saaraya waxyaabaha foodka la xiriira iyo waxyaabaha la xiriira securityga maritime badaha iyo sharciga caalamiga ama sharciga caadiga iyo cuntada iyo agriculture-ka marka waxa weeye security rule of law NGO civil society government media organizations meelahaasna waa meelaha iyagana la eegay strategic partners la shaqeeya waxyaabaha kala shaqeeya haddii aan ku laabano page-kii requirements-ka u imaanana marka requirements-ka number of scholarship limited waa la bixinayaa female and male for professionals who are motivated qof ay dhiiranaani ka muuqato living and working OKB country wadamada waan soo sheegnay hadda Soomaaliya iyada ku jirta proficiency in English or French in English iyo French mid garanaysid working in one of the priority areas for their country waa inaad misna priority areadaas themeskaas aanu sheegnay mowduucyadaas in aad ka shaqeynaysid oo aad haddii aad dalbanaysid security waxyaabo la xiriira waa inaad waxyaabo security la xiriira ka shaqeysid oo can motivate using and transferring their knowledge and experience in their employing organization after their studies marka ay waxbarashadooda dhamaystirtaan inay wadankooda ku laabanayaan wadankii ay gadaal ugu celinayaan waxbarashadii iyo sidii shuruudaha iyo qawaaniinta u yaala scholarship inay ka soo baxayaan for more information linkskan markasta raaca linkiga kalo focus country focuska kan kale iyagana details dheeriya ka sahlaysan luqadda haddii aan u nimaano luqadda waa English iyo Faransiis qofku waa inuu khibrad u leeyahay midkood ma garad marka waxaan filayaa Soomaalida inay English ay garanayaan ama English khibrad loo leeyahay hadhowna jaamacadaada si gaar u sii baaraysaa bal iyadana waxyaabaha requirements-ka ay leedahay
priority themeskan waa inaga haddaad soo aragnay waxyaabahan intaan haddaad mid ka mida soo xeraysid priority waa leedahay haddii ay ka duwan yihiin xoogaana waa caadi still Soomaaliya maadaama wadan iska least developed country iyo challenges badan ama caqabado badan ka jiraan ay tahay waa lagu soo dhaweynayaa baan u garanayaa u fahmay isku waa inaga hadda eegnay employee statement waxyaabaha kale oo la iska rabo waxaa ka mid ah employee statement waa meesha aad ka shaqaysid inay warqad kuu soo qoraan kuu soo saxiixaan oo taasoo sheegaysa in employerkaaga uu taageersan yahay applicationkaaga in qofka ku shaqo geliyay haddii aad bangi ka shaqaysid haddii aad hay'ad u shaqaysid iyo haddii aad dowladda u shaqaysid bayna warqad ka soo qaadatid laanta aad ka shaqaysid taasna ay caddayso in qofkani uu fasax ka haysto ama taageero weyn ka haysto meesha uu ka shaqeeyo government statement marmar baa iyada la isweydiiyaa laakiin waa dadka toos dowladda ugu shaqeeya iyadana haddii lagu weydiiyo soo saxiixo sideeba u xaraynaysaa marka check if your application falls within the OKB Fox areas determined for your country wadankaaga waa inaga haddaad soo eegno Soomaaliya waa inaga eegnay areadan ma yahay kow laba waxaa eegaysaa eligibility Soomaaliya waynu eegnay way ku jirtaa kadibna website-kan linkigan aad furaysaa Orange Knowledge Program waxaa ka eegaysaa koorso listigaas oo aad kasoo bixi karaysid ama aad la siman ama lagu dabaqi karo ama la xiriirta waxyaabaha aad ka shaqaysid marka linkiga haddaan furno waa u imanaysaa waa kana koorsooyin badan baa meeshan ku jira marka short courses baan joognaa oo waxa weeye iyaga baad ka eegaysaa koorsooyinka hadda egtidoo kale tan koowaad oo kale 3 bil weeye sida halkaa idinkan muuqata tan ku xigta 12 beri midaas waa 3 bil midaan waa 3 months 12 days 2 months marka waa koorsooyinka gaagaaban tan oo kale goortan furno koowaad oo kale toos baa waxa u imanaysaa jaamacadii bixinaysa programkan website-keeda hadda sii booqatid waa kana dairy farming and entrepreneurship marka toos baa waxa u arkaysaa apply-ga xagan ku qoran xoga dheeriya ku qoran programka requirementska lacagtaas ku qoran laakiin adigu ma bixinaysid laakiin waxa hubisaa in uu programkan scholarship-ka OKB leeyahay ma garat scholarships haddaad tiraahdo waa kana OKB wuu ku jiraa ma garat marka haddii aysan jaamacadda OKB aysan ka tirsanayn hadha way adkaanaysaa inaad fan u heshid oo dhaqaale u heshid programka marka jaamacaddana waxaa eegaysaa sidoo kale requirementskeeda iyo qualificationka waxyaabaha admission requirementka waxyaabaha ay u baahan tahay fiirkawaan IELTS bay u baahan yihiin marka waa inaad koorsadaada markaa website-kan ka heshid aad sii dabageshid sidoo kale qofka u shaqeysa waa inuu weydiisid inuu rabo inuu ku nominate gareeyo inuu ku sharaxo camal inaad aad ka qayb gashid barnaamijkan waxaa la xiriiraysaa sidaan hadda sheegnay Dutch Education Institution of your choice saa xoga dheeri uga heshid jaamacadda ama website-ka page-kan ka heshay oo kulliyadahaaga bixinay ama koorsada aad rabtid gaaban aad rabtid inaad baratid bixiyaa toos ula xiriiraysaa sidaad academic requirementska iyo waxyaabahaas oo dhan iyo qaabka loo apply gareeya uga heshid ugu dambeyntii labada qodob ugu dambeeya waxay prepare your application employee statement motivation passport government statement haddii loo baahdo dokumentiyadaas isku dubarido haddii loo baahdo ugu dambeyntiina markaad dokumentiyadii wixii dhan soo bahalkii garaysid waxaad ku submit garaysaa online baa ugu submit garaynaysaa jaamacaddu linkiga ay ku siiso aad la xiriirtay sidoo kalena u warhay deadline-ka ama waxaad isku daydaa inaadan waqtiga ka dibdhicin oo aadan waqti dambe soo xarayn marka deadline-nadu waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye waxay furan 28 June ilaa 5 September marka for courseska koorsooyinka bilaabanaya February marka taasna waa inaad niyadda ku haysid hadday kanoo kale aanu eegnay kanoo kale hadda waa inaga dairy farming oo kale goortaan eegnay goortaan furnay deadline-ka waa kan halkan ka helaysaa kan 29 August buu xirmaya marka waa inaad ka warhaysid intaa ka hor uu xoog oo dhan jaamacadda la xiriirtid dokumentiyada dhan u gudbisid waa inaad markasta eegtid nan EU dadka aan EU da ahayn la'aan laba deadline ba meeshan ku qoran meeshan waa dadka EU da European Union-ka ku jira meeshaasna waa dadka aan EU da ku jirin lacagta ay waxa eegin kaliya deadline-ka eeg jaamacadda la xiriir requirements-keeda ka soo bax toos xaray kadibna ka warso wixii kale oo su'aal ah qabtaana waxa weeye qaybta comments-ka waa igu soo weydiin kartaan ama telegramka haddii aadan telegram ku jirin telegram linkiga inta heshid ku soo biir xaggaa su'aalaha waa isku weydiin karnaa iyagana sida caadada ah ilaawin in aad share iyo subscribe iyo like tiraahdo siduu channelku noogu koro aan walaalo badanna u gaarsiino ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Sharaw idinla isma dhaafin assalaamu calaykum